muhiimadda ugu badan waxa way xalay waxaan daawanayay telefishin wuxuu ka hadlayay bahashan dumarku ismariyaan ableenu ismariyaan inkastoo la yidhi inamadiina imika way bilaabeen dhallinyarada waxa ugu daran waxa weeyaan qofkii waxaa la marinayaa diirkiibuu ka saarayaa xanuunkiibuu u nuglaynayaa sab saxaraha wixii afrikadan saxaraha oo dhan innaga ilaa 6 dowladood oo inaga sokeeyaa dadka waxaa ismariya la sheegi dabadeedna waxa weeye waxay u nuglaanayaan kansarkii waxay u nuglaanayaan macaankii waxay u nuglaanayaan wax walba dee qof bini'aadmiyo diirkii laga saaray ood garanaysa aan ku wacyigelinno dhallinyaradeenna in dawadaas la joojiyo waayo jidhkaagii ayay furaysaa waa la qabaa dee qolada afrikaanka ee qaylinaysee dadkoodii sawiraysee dhibaatada ay leedahay dadka tusaysa si kuwa kale uga badbaadaan kow niman kaloo maxamed cabdiraxmaan iyo lahaa nin halka ka hadlayay iyo dawada midhaydhuha dawada gabdhu ismarinayaan isu qurxinayaan hala joojiyo marbannaga gabdhaha quruxdooda ka joojin kare oo waxaa nagula hadlaysaa wax dhibaato adduunka kaleba dhibaato ma gaadhsiiyeen ma kuween u gaadhsiiyey runaan isu sheegno yaynan isku maaweelinin waxaan jirin dawo jir dishaa ma jirto kow